ayaa si weyn magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland loogu soo dhaweeyay halka Mrs Walla dib loogu ceshay diyaaradda ay saareed Mrs Walla wixii lagu qabtay iyo qowsheeda oo dhan waxaad kala socon doontaa isla page-keena iyo sidoo kale YouTube-keena Cabdulla Xuseen iyo page-keena Nasr Xuseen labadaba haddaba sheekadan marka aan idila wadaagay qaybteedii hore ee jacaylkii ka dhaxeeyay Moohaan iyo sidoo kale Sumaya Qurux waxaa si weyn oo qtiran loogu soo dhaweeyay Hargeysa waxa soo baxay dad badan oo taageerayaal waxa sidoo kale lagu soo dhaweeyay sawirkeeda halbalyo ayaanu leenahay Sumaya Qurux ku soo dhaw Soomaaliland caasimadii Jamhuuriyadda Barkaasneed ku soo dhaw ayaanu ku leenahay halkaas TikTok ka sii galagay anaka page-keena waxaan leenahay cid kasta oo Soomaali meel kasta oo joogtaan page-keena follow noo soo dhaha followda ayaa noogu baahanahay 10,000 followers heerkan ku gaar lahayn ayaan soconaa followda noo soo dhaca saaxiibayaal aad baad ugu mahadsantihiin la jaaqeedkiina iyo qurux badan ee noola joogtaan haddaba Sumaya waa gabadh TikTokerada ka soo jeeda dhinacaas iyo Kenya soo kalena Muqdisho ugu dambeyntii ku soo barbaartay halkaan waqti badan ku soo qaadatay waxa hadda lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa inta ka hadli doono mawduucin labaad hadda soo dhaweynteeda quruxda badan iyo sida lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa thank you I'm